itaabtay runtii inaan Soomaaliyeed oo la yiraahdo Xamda Xamda Queen oo fanaanada ahaan jirtay oo fanka Soomaaliyeed ka baxday oo maxaa la yiraahdaa inay yaro imika ka shaqeeya Dayax films oo dhawaan YouTube-ka loo furay xataa dadkii u furay mataqaanaa qaban qaabiyay saaciday maxaa la yiraahdaa suurta geliyay anigu ogahay si runtii oo aanan iga dheereen oo ila joogan oo xataa lacagta ka soo baxda YouTube-ka waxaan ogahay inuu subaxta aan wax badan ku qaadan waayo dadka sameeyay addresskooda kaadhkoodii bangiga informationkoodii oo dhan ayaa ku qoran isaga wax allaale wax loola isticmaalay oo isaga khuseeya ma jiraan anu taas waxaasoo dhan baan ogahay inankaasi wuxuu doonaya inuu kusoo shacbaxo inantaas Soomaaliyeed ee fanka Soomaaliyeed sharaf ku lahayd sharafna kaga tagtay حتى هادو دي wax runa kasoo sheegayo hableen horta meel kasta hablu joogan sharaf bay mudan yihiin iyo karaamo iyo cisi iyo maamuus iyo qadarin dawo hooyadeen waa walaasheen waa inanteeni de hablu de yani waxaaski yani hablu marwalba sharaf iyo karaamo ay mudan yihiin nin raga ina deenu gabadh yani been abuur kasoo sameeyo oo kasoo hadlo oo share iyo comment iyo subscribe ku doono de waa laga wanaagsan subscribe iyo share iyo like hadaan ku raadiyo inan Soomaaliyeed oo sharaf leh oo Soomaalida sharaf ku leh oo yani xushmad iyo ixtiraam iyo qadarin inta mudan inaan lacag ku raadiyo iyo comment iyo lacag daan xataa wix aan fiican ka qaadanaynin oo daan wixii aan iska lahayn ninkaas inanta oo ku gafay waxaan leeyahay sida uu dhaqsiya badan leh cabdu soo lugayo Cabdiraxmaan soo lugayo inanta sida ugu dhaqsiya badan leh arrinkaas sagaa weynad raaligelin ka soo bixisaa kama giido inaad been abuur ka soo samayso oo aad soo tiraahdo maxaa la yiraahdaa nin baa fankii uga baxday been abuuro noocaasa oo aan dhageystay oo Xamda Queen nin baa guursanaya oo bala niyo xataa dad wax run u eg sheegayso wax been u eg doonaysa inaad dadku sheegto wax run soo yar eeg baa la sheegaa oo dadku ka dhageystaan waxaan wax ka soconaya ma oo ku karaamo seegtay oo ku sharaf beeshay kulli anigu boonti baan ku hayeeyo waxaan islahaa wax uu cambu ninkaasi soo saaraya ama YouTube-kaasi de ama channel-kaasi wax fiican buu soo bandhigi doonaa laakiin waad ku khasaartay sagaalka waad ku fashilantay hadalladaadan aad kula soo kacday inantana waa deelqaaf raaligelin ka soo bixi baan ku leeyahay bal in yar seen codkiisa oo yara maqalno ila yara dhageysta waxaan idin sheegay inaan daaha ka qaadi doono ama aynu sii dayn doono sahankii inta badan aan idinku maqnaa xogihii kala duwanaa ee fanka la xidhiidhay in dhaweyto xogo fara badan baa idinka daahsoonaa laakiinse toddobaadkan waxaynu ooda ka qaadi doonaa xogo fara badan oo idinka daahsoon waxaan u sahan tagnaa oo aanu xogaha u soo raadinaa shakhsiyaadka fanaaniinta ah had iyo jeer waxyaabaha idinka daahsoon inaan idin sheegno xaq baana u leeyahay waayo idinka wax ka dhigay fanaankan waxba lagama sheegi karo halkan lagama baahin karo sidaan lama oran karo yaa wax ka dhigay soo dadka maaha soo intana daawanaysa maaha annaga yaa wax naga dhigay soo idinka maaha waa la sheegaya waa la baahinaya laakiin shakhsi weerar iyo wixii qof musharaftiisa wax u dhimaya wixii aflagaada wixii cay ah hadal dib jir kuma hadlayna si guud iyo si weyn baynu hadlayna kula wanaagsan wuxuu ka dhawaajiyay hadal dib jir iyo hadal kuma hadlayna waxaan ku hadlaynaa si weynimo
ciyaal suuq number one only one way isaga xataa wax loo jawaabo maaha wax loo jawaabo oo hadal la iskaga khasaareeyo wallahi maaha waayo yani meeshuu ka bilaabayba meel khaldana xataa haddaad meel yani wax sheegayso oo aad doonaysa inaad wax ka hadasho burul yani wax fiican baa laga soo hadlaa oo yani wax hataa dee nin baa laga soo hadlaa wax kalaa laga soo hadlaa yani wax dee soomaalida ama magaranaysa dee ninnimada aada u wanaagsan laakiin inan soomaaliyeed oo sharaf soomaalida ku leh ayaad doonaysa inaad xagato oo dee yani aad daba dhilif ma garanayo war ciyaalo suuq